daawadayaal ku soo dhawaada qaybta idaacadda radio Baraarug Media oo alaab lagu soo gudbino waxa ka dhacay geega Soomaalida iyo caalamka. Dhacdooyinka iyo ficilada muujinaya sawirka iyo waxyaabo ku cusub siyaasiyiinta ku hirdamaya doorashada ka socota dalka Kenya oo qaaday tallaabadii military ee ay Taiwan ka walwalaysay muddooyinkii u dambeeyay. dalalka Shiinaha iyo Japan oo iyagana ka dhaxqarxday iyo ficilada muujinaya sawirka iyo waxyaabo ku cusub tallaabooyinka ay qaadayeen siyaasiyiinta ku hirdamaya dalka Kenya doorashada xilligan ka socota. qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka Kenya ayaa ka soo degay habnooleedkoodii raaxada iyo tamashlaynta noloshii heerka sare ee ay ku noolaan jireen waqtigii hore, isla markaana intii ay ku jireen ololaha doorashada waxa ay bilaabeen in ay u jeestaan dhaqida suuliyada, fiyaan jarjaridda qudaarta iyo karinta shaaha si ay u soo jiitaan codbixiyayaasha doorashada la filayo in ay qabsoonto 9 bisha August ee sanadka 2022. waxaa ka mid ah siyaasiga dhacdooyinka ku cusub dadka Kenyaatiga ah ee siyaasiyiinta maanta ku soo bandhigay ololaha ay ku sugnaayeen gudaha magaalada Nairobi iyo dalka Kenya. Polycarp Gate oo xidhay dharka nadaafadda kadibna bilaabay dhaqida suuliyada ku yaala caasimadda magaalada Nairobi. in ka yar 20 ilbiriqsi ayuu ku qaatay xaqiiqda suuliga iyadoo oo dadkii ka shaqeynayay nadaafadda ay si la yaab leh u eegayeen dhankiisa markuu uu sameynayay nadiifinta dhanka ama maydhita dhanka suuliyada. muddo dheerba waxaa loo aqoonsanaa shaqo uskag ah, balse waa shaqo mas'uuliyad leh ayuu yiri Polycarp. ficiladiisa ayaa soo jiitay dadka qaar oo ku maadeysanayay, qaarkood ayaa ku taliyay in uu caruurta la hayo isla markaana shaqooyinka guriga qaarkood uu la qabto. Barasa ayaa isna isku dayay in uu codbixiyayaasha ku soo jiito isagoo ka haynaya mootooyinka dadweynaha isagoo oo meel iska dhigay gaarigiisii raaxada. xildhibaanka galbeedka Bakasi Churchy Terry ayaa sidoo oo kale bartiisa soo dhigay sawir isagoo cagacad oo ku logeynaya wadooyinka isagoo cilwaan uga dhigay anigoo jeclaysanaya xilli walba oo aan xaafadda dariskayga ku qaatay. Mr. Terry ayaa sidoo oo kale xidhay suwaal gaabantaas oo ka mid ah dadka ku taageera baraha bulshada uu kaga jawaabayay. Mr. Barasa sawirada laga qaaday ayaa muujinaya isagoo shaah uu karinaya haweeney carmal ah oo 67 jir ah laguna magacaabo Albita isagoo wali xidhan kabihiisa qaaliga ah. dadka falaqeeya ama ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka Kenya ayaa sheegaya dhankooda ku doodaya in ficiladan lagu yaqaano xilliyada doorashada isla markaana laga yaabo inaysan sameyn codbixiyayaasha mar dambe xilligaas haddii doorashadu markay dhamaato ay ugu dambe. xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Anthony ayaa sheegay in dhibaato kasta oo ka soo dhalata xiisadda Taiwan ay noqon doonto mid uu Shiinuhu mas'uul ka yahay. Shiinaha iyo Japan oo xilligan iyagana ka dhaxaloosatay qaraxa xiisadda ka soo aloosatay dhanka Taiwan darteed ayay iyaguna xiisad uga dhex bilaamatay. wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in shir ay yeelan lahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi iyo dhigiisa Japan loo baajiyay war ka soo baxay dalalka warshadaha ku horumaray ee la yiraahdo G7 oo ku saabsanaa Taiwan. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G7 oo ay ku jirto Japan ayaa arbacadii u jeediyay Shiinaha in uu xiisadda ka taagan marin biyoodka Taiwan ku xaliyo si nabad ah. xiisadda dalka Taiwan oo saameysay maraakiibta ganacsiga ee caalamiga ah, maraakiibta ka ganacsiga oo lagu qasbay in ay ka leexdaan Taiwan xiisadda darteed. isla markaana dowladtuska military ee ka socda Taiwan ayaa ku qasbay maraakiibta in ay ka weecdaan ku safrida mid ka mid ah marin biyoodka ugu mashquulka badan adduunka. ku dhawaad kala bar maraakiibta xamuulka qaada ee caalamiga ah iyo 8% maraakiibta ugu waaweyn dunida ayaa sanadkan marayay marin biyoodka dalka Taiwan. aanu ka soo xignay shabakada caalamiga ee Bloomberg. carqaladeynta maalmaha socota ayaa la filayaa in ay saameyn ku yeelato silsiladda saadka oo ay keento dib u dhac ku yimaada maraakiibta caalamiga ah. mas'uuliyiinta garoonka diyaaradaha caalamiga ee dalka Taiwan ayaa sheegay in maanta oo Khamiis ah la baajiyay in ka badan
konton duulimaad oo caalami ah sababo la xidhiidha howlgalka military ee Shiinaha uu ku sameynayay dhoolatuska cabsiga gelinta ah. markaana duulimaadyada baaqday waxaa ka mid ah 26 imanayay garoonka dalka Taiwan iyo 25 kale oo la filayay in ay ka baxaan. hirdanka siyaasadda ee reer galbeedka iyo Shiinaha iyo Geeska Afrika saameyn ma ku yeelan doona dalalka Somaliland iyo Soomaaliya iyo guud ahaanba xeebaha dhulka Soomaalida. dabaylaha iyo duufaanada siyaasadeed ee xilligan ka dhex aloosan gobolka ka socda ee qaaradda Geeska Afrika ayaa waxaa la saadaalinayaa guud ahaanba inay saameyn weyn ku yeelato dunida. madaxweynaha Soomaaliya ayaa isagoo dhawaan tagay dalka Masar, isla markaana waxaa la sheegay in dhanka sirdoonka ee dowladda Masar uu xafiis ka siiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh magaalada Muqdisho. arrintaas iyaduna waxa ay keentay oo guud ahaanba ka cadhaysiisay dalka Ethiopia. kalena xilligan Somaliland waxaa ka taagan qalaalaasa siyaasadeed iyadoo xilligan mucaaradku ku eedeynayo labada xisbi mucaarad ee wadani iyo cid. Muuse Biixi Cabdi uu guud ahaanba ka leexday dhanka dimuqraadiyaddii Somaliland ay ku soo caanamashay, isla markaana waxa ay mucaaradku ku eedeynayaan madaxweyne Muuse Biixi Cali xilligan inuu xuub siitay dhanka kaliistalisnimo, taas oo ay sheegayaan ama ay ku doodayaan inuu guud ahaanba la laabay dastuurkii Somaliland. wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin oo isaguna hadlay ayaa ka soo baxay erayo dadku ay aad ula yaabeen oo ahaa in guud ahaanba xilligii uu xisbiga talada dalka haya ee kulmiya uu mucaaradka ahaa ama uu hogaaminayay markii uu doonayay jagada madaxweynihii hore xilka ka tagay Axmed Siilaanyo. mudaharaadadii ay sameyn jireen haddii ay yihiin xisbiga kulmiya ee xilligan talada haya waa sida Maxamed Kaahin sheegay in guud ahaanba ay ahayd sharci darro, iyagoo oo xisbiga sida uu sheegtay ama uu qirtay shirjiraayad oo maanta uu ku qabtay wasaaraddiisa xilli guud ahaanba uu yeedhay wariyaal iyagoo afka dowladda ku hadla oo kaliya oo iyagu wax ka soo duubay ayaa guud ahaanba waxa uu sheegay inay sharci darro tahay mudaharaadka ay ku baaqayaan. waxaanu sheegay in xilligaas iyaga ay sharci darro ku kaceen waa sida xilligan oo iyagu wixii sameyn jireen ay ku tilmaamayaan sharci darro. wasiir Siciid Sulub oo ka mid ah xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo shalay mar uu la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in guud ahaanba xilligan khilaafka ka dhex taagan xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda uu ka tirsan yahay ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu saameyn ku yeelatay siyaasadda dhanka arrimaha dibadda ah oo ay faraha la soo galeen. waa sida uu sheegay mar uu la hadlayay warbaahinta shalay ayaa waxa wasiir Siciid Sulub uu ka markhaati kacay in arrimaha khilaafka xilligan ee xisbiyada mucaaradka iyo xagga xukuumaddaba ay saameyn ku yeelatay dhanka wadamada dalalka arrimaha dibadda ah ee wadamada jaarka iyo reer galbeedkaba ay qayb ka tahay iyo wadamada reer barigaba ay qayb ka tahay khilaafkan. waa sida uu u sheegay.